munaaradda gambaleelka sare ee kiniisadda San Onubrius. Waxaan ku hoos jira munaaradda gambaleelka si aad u saxan gudaha lintel ee u dhaxeeya munaaradda gambaleelka iyo dhismaha macbadka. Neef qoto dheer oo gidaarka midigta ku yaal. Lebinka waxa loo dhigaa meel wareeg ah. Lebinku waa tayo hooseeya, dhumucdiisuna way ku kala duwan yihiin. Sidaa darteed tolayaasha u dhaxeeya lebinku waa ballaaran yihiin. Niche waa la malaasay. Sida inta kale ee bannaan ee gudaha. Macadda sababta meeshan cabirka iyo qaabkan ah loogu baahan yahay gudaha munaaradda gambaleelka. Dhanka kale waxaa jira marin iyo jaranjaro xagga sare ah. Tuducana maaha mid u siman niche. Meesha ay ka furan yihiin gidaarada midig iyo bidix iskuma dhigna. Fiiri sida uu qaabku u kala duwan yahay. Waxa kale oo jira kala duwanaansho xagga sare ah. Daboolayaashu maaha kuwa siman. Qasnadaha sidoo kale kuma eka cabirkooda iyo goobta. Niche ayaa aad uga weyn marinka. Niche waa ka sarreeya oo ka ballaaran. Si aad u gasho jaranjarada waxaad u baahan tahay inaad foorarsato. Waxaad ku istaagi kartaa dherer buuxa gudaha niche. Caadi ahaan dadku waxay yiraahdaan halkan ayaa la dhigay farshaxan. Laakiin aan kiniisadda ka eegno dibadda. Ma jiraan meelo ku yaal darbiyada dibadda ee munaaradda gambaleelka. Ma jiraan meelo farshaxan oo loogu talagalay fasas ee dhismaha. Ma jiro hal meel oo derbiyada dhinaca dibadda ah. Derbiyada dhinaca allabariga ka yimaada ma jiraan meelo godad ah. Sidoo kale ma jiraan meelo loogu talagalay farshaxanada gudaha macbudka. Guud ahaan meelna ma jiraan meelo la mid ah oo loogu talagalay farshaxanka cabirka aadanaha. Meesha kaliya ayaa ku taal marinka hoostiisa munaaradda gambaleelka. Waxaan ogolahay in halkan la dhigi karo farshaxan. Markii ay kaniisadu la wareegeen dhismo qof kale oo aysan dhisisin. Markii hore nishakan waxaa loo sameeyay ujeedo wax ku ool ah. Si uu dhismuhu u fuliyo ujeedadiisa shaqo. Sababtaas oo ay u sameeyeen wax dhisayaashii ka soo wareegay wareegga ugu dambeeya ee bini aadmiga.